fayus raadis baa tahay fayus raadis baa tahay war fayus yaa raadiya dadka indhahooda sixraya ee views dartii u sixraya ee in la daawado dartii u sixraya dadkaas ayaa views raadiye anigu waxaan ahay ilaahay views qofka raba assalaamu calaykum waxaan idin la wadaagayaa waa cadayntii aad sugayseen maalmahan oo dhan horta marka koobaad cid kasta oo nool adduunkan ku nool waxa ay leedahay calaamad ay ka turjumayso qofkaasi waxa uu aaminsan yahay ama waxa uu daba ordayo ama waxa uu magaranaysaa noloshiisa ku saleeyay haddaan tusaale ahaan u soo qaadano saan haddaan maanta dhaho wax ayay ka micno tahay soo maha haddaan saan dhaho sida dhalinyarada yaryar soo heeseesa saan maxay ka wadaan geedaan cabaa ayay ka wadaan okay saanna saan soo sheegay waxa weeyaan christianska ayaa isticmaala ka soo gudub waxaa jira calaamado uu allah sheegay subxaanahu wa tacaala inaa qofka mu'minka ah lagu garto ama muslimka ah wuxuu dhahay allah subxaanahu wa tacaala muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا هلكا وما صعدي سيماهم في وجوههم من أثر السجود waxa ma garanaysaa calaamad ku sameysay raadkii sujuuda halka madowga raadka ma garanaysaa sujuuda ayaa calaamad ku sameysay waa calaamad lagu garto dadka mu'miniinta ee nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam raacay okay dadkan aan cadaynta ku hayo aan leeyahay ma garanaysaa shaydaan bay la shaqaysteen aniga miyaa dhahay shaydaan bay caabudeen may okay yaa dhahay shaydaan bay caabudeen waxa dhahay dadka iyaga la midka ah sababtoo ah Allah wuxuu leeyahay walladii am hasiba alladina fi qulubihim marad an lan yukhrij Allah adghanahum ma waxay u maleynayaan kuwa ma garanaysaa qalbiga ka buka inaanaan soo saarin calaamadahooda oo calaamadahooda Ilaahay waa maxay ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم هذانو دونو وانو كتوسي لهين محمدو أما قف كان لها الليو وانو كتوسي لهين ولا تعرفنهم في لحن القول وحانت كوغرني سابو ألا ليهي هذا الكأي الليحينيان أنيقا مياد إيقا مقشين شيطان بو قف عابدي أما قف أيا قال إيقا ميدان مقل waxaan dhahay shaytaanka ay la shaqaysteen haddaan u soo noqdo illuminariga qaybo badan ay leeyihiin qaar naftooda shaytaanka iibiyeen oo shaytaan bay Allah u haystaan buu caabudaanba ilaah amal qaarna waxay la galeen heshiis oo muddo ayuu ku soo eegyahay heshiiskaasi oo contract ay kala saxiixdeen qaarna haddaan tusaalahaan idiin soo qabto kuwa magaranaysa heshiiska la saxiixday waxaa ka mid ah fanaaniin raabariin ah oo muslim ah waxay dhahaan xitaa 5% muslim ayaan nahay ama 10% muslim ayaan nahay haddana way raabgareeyaan illuminarigi ma garanaysaa la shaqaystaan contract ay la saxiixdeen magacyadoodii hadda ma hayo berigaan heesaha iyo waxyaabaha ku walnaa ayaa iigu dambeysay 2018 wixii ka horreeyay waxaa kaloo ka mid ah 69 ninkan la dhaho caanka ah waxa weeyaan nin isaguna illuminarig ah wuxuuna sameeyaa intuu heesaha markuu soo qaadayo intuu aado Africa ama meel dad madow joogan ayuu lacaga u qaybiyaa sabab muxuu u sameynayaa ma ilaahay buu waji kaga rabaa maya dadka ayuu ku soo jiidanayaa si loo jeclaado waa sixir ka mid ah sixirada ay isticmaalaan dadkaasi waxa kaloo ka mid ah Drake ninka la dhaho intuu mall iska galo ayuu dhahayaa qaata wax kasta free ay idin tahay ma ilaahay buu waji kaga rabaa mise dadku inay jeclaadaan ayuu rabaa maye jacayl buu sameysanayaa waa nooc san soo sheegay ka mid ah sida ay dadka u sixraan waxa jira dad badan oo ma garanaysaa mansoniyiinta la shaqaysta ama ma garanaysaa ka mid ah oo Soomaali ah kuwa filimada soo turjuma kuwa madax ah kuwa ma garanaysaa soo raab gareeya kuwa soo heesa qaar aad u fara badan dhammaantoodana waan keeni doonaa cadayntooda maadaama Soomaaliyeed tihiin dad ma garanaysaa war jecel hadii aan keeno talow dadka mad ka fogaan doontaan talow sixirkii budubadhaagii sharkii waxay soo laaqayaan miyaad iskaga tagi doontaan Allahu yaclam aniga korkayga waxa saaran in aan idin soo gudbiyo wixii aan soo baadheen xaqiiqo u hayo idinkana ama qaata ama ha qaadanina shaqadayda ma aha haddaan hadda u soo gudbo saddexdan qof aan tilmaamay cadaynta aan ku hayo waxa weeyaan wajiga shaytaanka weligiiya arkay ama sawir yaa ka arkay wajiga ibliisida uu sameeysan yahay halkan ka eeg sida ayuu u sameeysan yahay waxa jira calaamado badan oo dadku isticmaalaan sida labada farood oo loo taagay peace and love ay dadka qaar u isticmaalaan ama ma garanaysaa bye bye oo kale ama lagu kala geey oo kale waxa jira saan oo kale
dadku nooca doonaan ha iskaga macnaystaan waa laba calaamadood oo ka mid ah calaamadaha shaytaanka oo haddaad aragto haddaad ku qorto ibliis ama satan ama devil haddaad ku qorto google-ka waxaad helaysaa taalo ibliis laga sameeyey uu faraha sidaa leeyahay waana calaamad ka mid ah calaamadihiisa laakiin istan ma garanaysaa dadka oo dhan baa isticmaala cid taqaaniyo cid aan aqooninba iska dhaaf tanna sidoo kale labadii geesa shaytaanka sheegaysaa dad badan baa isticmaala kuwa yaqaaniyo kuwa aan aqoonba iska dhaaf iyadana waxaa jira kuwa gaar ah oo ay sameeyaan keliyata dadka waxaa ku shaqo leh oo maxay sameeyaan wejiga ibliis bay gacantooda ku sawiraan wejiga ibliis siduu u samaysan yahay ayay gacantooda ku sawiraan lama gacmahooda ku sawiraan ama jidhkooda ayay ku sawiraan oo cumreyn ayaan idin tusi doonaa isaga oo jidhkiisa ku sawiraya ama lugihiisa gacmihiisa iyo magaranaysa ay ku sawiraya ayaan idin tusi doonaa waxa kaloo idin tusi doonaa maslax mideeya oo labadiisa gacmood ku sameynaya iyo samiixa oo labadeeda gacmood ku sameynaysa wejiga ibliis sida uu u samaysan yahay calaamada saana imse jeer baad aragteen samiixa oo saale te hal shay ilbay tilmaamaysaa somaha ka soo gudub waxaasoo dhan aniga maydaan iga maqal in aan dhahay qof baa gaal ah mana iga maqli doontaan dhihina maayo qof baa gaal ah dembigaasna anigu ma qaadanayo mana dhihin qof baa shaydaan caabudaya hadalka ayaa la leexiyo waa calaamaduhu alla ii sheegay ama inoo sheegayba dhammaanteen in ma garanaysaa lagu yaqaano dadkaas in ay hadalka leexiyaan sidii loo yidhi maayo si kale ay u dhahaan oo liilba liil maalmihii aan ma garanaysaa ishaysanay waa kii dhahay shaydaan baad igu tiri anigoona shaydaan ku dhihin halkuu ku maqlay anigoo shaydaan baa tahay dhahaya hadalkaa la leexinaya marka waa calaamad ka mid ah calaamadaha lagu yaqaano wala tacrifannahum fii laxni alqowl buu ilaahay leeyahy subxaanahu jalla fii culaa haddaba ila daawada wejiga shaydaanka ama wejiga ibliis sida ay dadkani gacmahooda ugu samaynayaan asxaabta waa ka curadkii noo imid asxaabta waa ka curadkii noo imid indhihiina ayaa idin macallin ah dadka qaar baa waxay soo dhihi doonaan anigu halkan uma soo fadhiisan in aan u jawaabo qof youtuber ah ama qof ma garanaysaa bariis ku raadinaya waxa dadku isla dhex marmarayaan no anigu dadkaas uma jawaabayo lamana hadlayo waayo muuqaaladaydii oo lasoo goosgoostay bay iyagu meelaha ka arkeen xitaa profilekayga inta yimaadeen maynan daawanin muuqaalkayga so idinka ma garanaysaa ani waqti iskagama kiin khasaarinayo hadalna iskagama kiin khasaarinayo maalihiina bariiskiina ka raadsada midda kalen ku daraya waxa weeyaan qof ilaahay subxaanahu wa tacaala viewska raba ayaan ahay qof ilaahay dartii xaqa usoo gudbinaya ayaan ahay ha qadhaadhaado ha macaanaado cidduu doonaya ha dhibo xaqa waan sheegaya waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila كان زهوقا dad badan oo filimaanta iyo waxyaabaha iyo raabare iyo fanaaniin iyo magaranaysaa madax ka mid ah oo mansoniyiin ahna waan soo wadaa cadeymahooda iyo magaranaysaa waxyaabo aad ku xaqiiqsan doonto inay dadkaas ka mid yihiin muuqaalkan intaas ayuu ka ogaya xilligay ku tahay oo nuuri